wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa tababar aqoon isweydaarsi ah ka daafurtay gudaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaana ka soo qayb galay haween tiradooda gaaraya 50 ruux. Tababarkan oo soconaya muddo hal maalin ah ayaa ku saabsan kor u qaadista dimuqraadiyadda ayadoona la marayo tababaradii hore u soo qabatay wasaaradda haweenka si ay uga qayb galaan haweenka doorka siyaasadda dalka iyo sidoo kale doorashooyinka dalka. Gudoomiyaha ururka haweenka degmada Gurceel Shukri Mire iyo qaar ka mid ah haweenka ka soo qayb galay aqoon isweydaarsiga ayaa u mahadceliyay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug. oo waayo markii la leeyahay dumarku yani qaabkeed uga qayb qaadan kartaa siyaasadii iyo adigoo la tartamaya ama competition la sameynaya raggi sideed uga qayb qaadan kartaa taasoo oo ayadana maanta ka agdhowdahay ama jaantus ay noo tahay in aan awood u yeelo doono maadaama ay nagu soo food leedahay doorashadii oo deegaano fara badan ay ka jiraan ama Soomaaliya oo dhan ee doorashooyinka si kala duwan ay u jirto ama ku nagu soo food leedahay marka waxay ayadana noo awoodsiinaysaa in aan fursadaas qaaliga ah aad maanta aan uga faa'iideysanay annagoo uga faa'iideysanayno yani cashirka maanta aan qaadanay iyo casharo ka badan oo rajay doono insha Allah taala inaan qaado doono oo uga faa'iideysan doono noogana faa'iideey doonto sidoo kale wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug aan ka rajay doono si isku dhaxgal u sameeyaan iskaashi in tusaale ahaan gabdhaha dhexdooda kala gabar xaafada kula joogto oo jaamacad kula dhigato mise dugsi sare kula dhigato markaad aragto wax laga dooda oo siyaasadda ku saleysan Facebook aad ku aragto waa inaad ka sheekaysatiin dhexdiina munaashaqo ay sameeyeen isdhaxgal aad fahantiin ciwaankan muxuu ka hadlaa in ninkan maxaa waay mucaarad miya ninkan ra'iisul wasaare miya Soomaali xoo ka soo noqday xilmo ka soo qabtay ina wax badan ka ogaa karto. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Gurceel Cabdirasaaq Cabdullaahi Faarax ayaa isagana u mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaadatay in tababarkan la soo gaarsiiyo degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. farxad noo maanta inaan marqaati iyo goobjoog ka noqono furitaanka seminar xaqiiqatan ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka Galmudug oo la rabo dumarka laftirkooda in lagu baro sidii ay ragga isaga dhici lahaayeen waxa meesha loo fadhiyo intaas ugu muhiimsan waa rajaynaa insha Allah taala in ka soo qayb galayaasha seminaarkan ay wax badan ka faa'iidi doonaan bar doonaan skills-ka iyo xirfadaha dadka macallimiinta ee meeshan jooga ay bari doonaan ka qayb qaadan doonaan sidii looga qayb qaadan lahaa horumarinta dumarka waa dareemayaa waan aaminsanahay inay meesha fadhiyaan dad badan oo figures ah oo loogu talagalay oo xaqiiqatan u tababarnaayba ee aan ayagana la rabo kaliya memorize inay u noqoto oo dib loogu celceliyo wixii la rabo inay bartaan wasaaradda mahadcelin ballaaran ayaa ugu mahadcelinaynaa Fardowso oo ah qabanqaabiyaha programkan si gooniyo oo ayadoon reer Gurceel si gooniyo uga mahadcelinaynaa waan rajaynaynaa waan aaminsanahay dumarka reer Gurceel inay yihiin kaalin muuqato oo bulshada magac iyo maamuus ku leh. Cabdullaahi Maxamed Khadar warbaahinta asal